kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid noqonaya xogta duqeymo culus oo ka dhacay buuraha calmiskaad faahfaahin sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa puntland se maxay ka tiri duqeyntii ugu dambeysay halkaasi ka dhacday qodobada kale waxaa ka mid noqonaya go-aanka maamulka Trump ee ciidamada Mareykanka kasoo jeeda gudaha Soomaaliya iyana waad maqli doontaan haddii Allah awood lahaydmo sida ay si lamid ah halis weyn oo kusoo korortay xaaladda Gaza iyana qayb ayay ka noqon doontaa haddii Allah awood lahaydmo howlgal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka Jubbaland maxaa ka cusub qodobada ay wixii nagu soo kordhaa ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo markaan haddii aan fiirino wararka naga soo gaaraya gobolka bari ayaa sheegaya in mar kale xalay duqeymo diyaaradeed oo ay fuliyeen saaxiibada caalamka ay ka dhaceen aagga buuraha calmiskaad kuwaas oo lala beegsaday kooxda Daacish duqeymaha ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo shabaab oo ay ku sugnaayeen kooxda Daacish oo haatan cadaadis xoogan kala kulmaya Puntland iyo sidoo kale saaxiibada caalamka qoraal kooban oo ka soo baxay maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in duqeymaha lagu dilay ilaa 30 xubnood oo ka tirsan kooxda Daacish sidoo kalena lagu gubay gaadiid dagaal iyo sidoo kale saanad xubnaha la dilay ayaa waxaa ku jiray ajaanib ka barbar dagaalamaya Daacish sida la sheegay war-saxaafadeed Puntland ay uga hadashay duqeynta xalay ka dhacday gobolka bari waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in tirada xubnaha lagu dilay howlgalka ka socda gobolka bari ay gaarayaan in ka badan 200 oo xubnood oo ka tirsanaa kooxda Daacish lana sii xoojin doono dagaalka lagula jiro laba duqeyn oo caawa howlgalka lagu fuliyay deegaanka shabaab ee buurleyda calmiskaad waxaa lagu dilay in ka badan 30 argagixiso Daacish ayaa lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta maamulka Puntland ay leedahay gaar ahaan madaxtooyada xaaladda ayaa weli kacsan waxaana ciidamada Puntland ay ku sii siqayaan godadka ay ku dhumaalaysanayaan xubnaha Daacish ee ku yaala buuraha hoostooda si kastaba weeraradan dhanka cirka waxaa ka qayb qaadanaya Mareykanka oo duqeyntii ugu dambeysay aagga calmiskaad ka fuliyay kowdii bishaan wuxuuna sheegay in uu ku dilay 14 xubnood oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo kooxda Daacish ka tirsan markaana haddii aanu fiirino ciidamada taliska Mareykanka ee Afrika loo yaqaano AFRICOM ayaa laga yaabaa in ay sii joogaan Soomaaliya muddo dheer inta hore loo qorsheynayay iyadoo ay si gaar ah diiradda loo saarayo dagaalka ka dhanka kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo sidoo kale Al-Shabaab kuwaas oo dhibaato weyn ku haya gobolka geeska ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Mareykanka xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa si cad u sheegay in ay suuragal tahay in ciidamada Mareykanka ay sii joogaan Afrika inkastoo xilligan maamulka koobaad ee Donald Trump uu qorsheenayay in la dhimo joogitaankooda ciidamada Mareykanka ee caalamka guud ahaanba laga yareeyo qorshaha Afrika waa safka hore ee dagaalka ay wadaad xagjiriintu wadaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ma ogolaanayno inay saldhig ka sameystaan gaar ahaan inay weeraraan Mareykanka hadda Mareykanka waxaa Soomaaliya ka jooga ku dhawaad 500 oo askari kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish kuwaas oo dhibaato weyn u geysanaya ciidamada ammaanka iyo sidoo kale dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay AFRICOM waxaan rabnaa inaan marka hore dhageysano talaabooyinka taliyayaasha ku sugan goobaha dagaalka ayuu yiri Hegseth isagoo intaa ku daray in Mareykanka uu ciidan keeni doono meelaha laga maarmaanka balse uu doorbidayo in uu la dagaalamo argagixisada si ka duwan sidii hore ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay Mareykanka waraantii bishan duqeyn dhanka cirka oo Mareykanku ku fuliyay ayaa lala beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan buuraha Golis ee Soomaaliya talaadadii taliska AFRICOM waxa uu shaaca ka qaaday in sarkaalkaas lagu magacaabi jiray Axmed Melenini oo la aaminsan yahay in mas'uul ahaan qorista dagaalamayaasha kooxda Daacish dhamaadka sanadkii hore ciidamada Mareykanka waxay sidoo kale fuliyeen tiro duqeymo ah oo ka dhan ah Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish taasoo lagu dilay dagaalamayaal badan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay AFRICOM Hegseth waxa uu intaasi ku daray in hogaamiyayaasha caalamka ay khalad sameynayaan haddii ay fasirtaan in qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dib u eego istiraatiijiyadda ciidamada
caalamiga ah ee Mareykanka, taasoo muujinaysa in Washington ay dib ugu guureyso caalamka. Waxaa qalad noqon doonta in la maleeyo in Mareykanka uu wax ka tagayo ama uu ka baxayo, ayuu yidhi. Gudahaan saaxiibayaal, warkii aad kala socoteen barteeda waa naga intaa. Wixii kusoo kordha kuwa soo aadan ayaad ku daawan doontaan.